السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تشرفت بضن أصحابي هدي عاد مقشين libaaxa inaas libaaxsan ka taabtay ama ina libaax fuul halkan waxaad saad ka aragtaan ninkani waa ninkana libaaxi caanihiisa soo lisay libaaxu caana kasoo maalay ninkan aad u jeedaan sidaad halkan ka arki doontaan ninkani waxa uu u socdaa awgaatan soconaya libaax geedka hoos fadhiya oo laba ah labada libaax buu u tagayaa mid wuu cabsaday oo wuu baxay labadii libaax mid baa baxay geedku xagga shishe ka maray midna geedkii buu hoos fadhiyaa ninkana saad u jeedaan labada low iyo labada gacmood ayuu ku socdaa wuxuuna u socdaa libaaxani waa caarkaas wuu soo kacayaa ninkan wuu u imaanayaa balse ninku waa nin u tababaran libaaxa iyo qaabka loola dhaqmo libaaxa wuu soo kacayaa wuu u imaanayaa inuu hubiyo isagoo u socda waxani waxa uu yahay meesha soo galay wuu imaanayaa ninku waa ninkani sanqadh iyo qaabkii uu libaaxu ku ogaan lahaa intaba wuu iska ilaalinayaa sida aad u jeedaan libaaxii waa u yimi ninkii waa u yimi inta uu u soo jirsaday waa aragtaan balse wuu baqay libaaxii waa cabsaday dib buu u booday ma uusan rin intaa kuma uusan tegin sanka ayuu wax ku baadi goobayaa inuu hubiyo ayuu doonayaa ninkana dib buu u gortay wuu ku soo booday waa soo hujuumay waa cabsi gelinayaa ninka balse si uu wax u ogaado balse waa u suura gelilaaday ninku qaarka sare ayuu la kacayaa marka uu libaaxu ku soo boodi rabo libaaxu waa dagaalansan yahay waayo waxaan inuu ogaado ayuu doonayaa ugu soo galay geedkiisii uu iskaga leersanayay hase yeeshee ninkani ma uu rabo inuu libaaxu ogaado wuxuu iska ilaaliyay qaabkii uu libaaxani ku ogaan lahaa waayo haddii uu hubiyo oo libaaxu ogaado wuu dilayaa libaaxuna wuxuusan ogaanin oo uusan iska hubinin ma dilo umana tago waxa uu ogaaday ayuu dili karaa ninkani wuxuu iska ilaalinayaa inuu libaaxu ogaado oo uu hubiyo waxa uu yahay sidaad u jeedaan wuu jiibsanayaa kolba libaaxii kale geedkii buu kusoo noqday geedka harkiisii ayuu fadhiistay wuxuuna warka sugayaa libaaxan buu warka sugayaa inuu uga warkeeno sidaad u jeedaan labadiisii lugood ayuu yimi libaaxu balse ma ogaan karo ilaa iyo hadda waxa uu yahay waxani libaaxii waa istaagay saad u jeedaan wuu suura geli weyday inuu hubiyo sidaad u jeedaan wuu ciyayaa libaaxu waana cabsi gelinayaa ninkan iyo waxan si uu hubiyo qaab uu wax u hubiyo ayuu libaaxu leeyahay oo isaga laftiisu isaga tababaran oo tababar aad u sareeya ayuu wataa libaaxa laftiisu sida aad ula socotaana waa xayawaanka
ugu dilaasan ee ugu halisaysan ee ugu sharka badan xayawaanka ilaahay abuurtay. hase yeeshee ninkuna waa u tababaran yahay sidii uu sharkiisa isaga difaaci lahaa oo dhan buu u tababaran yahay. waayo wuxuu iska ilaaliyey inuu ogaado ama inuu cabsado qaabkii uu libaaxu wax ugu ogaan lahaay oo dhan ama uu ku dili lahaay oo dhan ayuu iska xidhay. libaaxu waa soo dhaqaaqay, weli waxaa ka go-an libaaxa saad u jeedaan waa halgaaday. qaarka sare marka uu la kaco oo ninku uu qaarka sare la kaco, libaaxu waa boodaya, dib u boodaya, wuu iska tegay libaaxi. intaa kuma uusan ekaanin inuu iska tago, weyli noqon weyday, wuu isu soo taagay saaxiibkii. waayo ma uu wado wax uu saaxiibkii war sugan oo u geeyo, war buuna ka sugayaa. haddaba asxaabay, bahalka ugu sharka badan sidaan hore usoo sheegnay xayawaanka weeye. hase yeeshee ninkan waa nin cajiib badan oo u tababaran libaaxa iyo qaabka loola dhaqmo. sida aad u jeedaan waad aragtaan, wuxuu ka warbixinayaa ninkani qaabkii libaaxay, wixii uu soo arkay, sidii libaaxa ula kulmay, tababarka uu qabo libaaxan, siyaabaha la isaga difaaco, sida loo hubiyo ammaankaaga markaad libaaxa la kulantid. waxaan rajaynayaa inaad ka bogateen, si fiicanna aad u daawateen. aad iyo aad waxaan idinku rajaynayaa guul iyo la socod wanaagsan. assalaamu calaykum asxaabay.